بسم الله الرحمن الرحيم maanta aniga cabdisalaan xaaj ismaaciila waxaan doonayaa in shacabka Soomaaliyeed aan idinkala socodsiiyo inaan idinkala socodsiiyo arinta Ciraaq arinta Syria ee hadda socota inaan bal update idinka siiyo dhinaca wararka waxaad ka heshaan youtuberska iyo idaacadaha iyo internetka meelo badan baa aad ka heshaan newskaas oo shalay bay dawladdu dhacday la riday maanta interim government buu magacaabay ninkii meesha qabsaday oo waliba isagu iska leexiyay nin kale buu dhiibay waayo isaga wuxuu ahaa nin 10 milyan ay dul saaran tahay Mareykanku hadda ka hor dul saaray markuu dul saarana dee wali hadda Mareykanku waa ka warwacanayaan sabab kale aan gali doono gadaal ka sheegi doono darteed marka nin fiican buu noqday oo iska weeciyay qolo kale oo dadkiisa abu u dhiibtay oo yiri idinku dawlad soo dhis isla maanta marka taas baan doonayaa inaan backgroundkii hore iyo opportunity aan soo jeediyay waxaan qoray wax la yiraahdo political solution proposal on Syrian crisis kaasaan qoray 2013kii waxaan u gudbiyay madaxweynaha Obama president Obama aan u gudbiyay oo termkiisii koowaad ahaa ayaa maartay termkii labaad actual termkii labaad markuu la soo doortay 12kii bay ahayd baan maartay aan u gudbiyay waayo waxaan la doorashooyinkiisii bilowga ahaa Obama Team for Change bilowga ahaa baan la shaqeynayay marka kalsooni waxaan ku qabay in Afrikaan oo waalid muslimkiisu yahay oo Afrikaanka oo dhan u dadaalay oo inuu arintaas mowqif fiican iska taagi doono baan filay laakiin mowqifkiisu waa qarsoon 7 dal oo muslim ah in la dumiyo baa oo qolada ka horeysay dejisay baa balankiisu ahaa 7 dal bay noqoladatan ay ka mid noqotay marka proposalkaas intaan saas aanan qorin waxa ka horeeyay oo Arab Spring wuxuu ku bilaabmay Tunisia 2010 December buu bilaabmay markii wiil yar oo barnaamijyo badan baa la sameeyay barnaamijyo meesha ka bilaabmay wiil yar oo maartay 16 jira Mohamed Bouzizi la yiraahdo oo Tunisiana baa maartay meel uu kaarta yar wax ku gadanayay street vendor baa la yiraahdaa afka Faransiga laakiin gaari gacmeed wuxuu saaran yihiin oo laamiga qarkiis ku gadgadayay baa gabadh booliiska ay ka kaxays way ka kala tuurtay baxta ma oran way kala tuurtay wixii way daadisay ismaal muu noqday noloshiisa meeshu ka soo saar jeey uu noqday intuu gaas soo gatay buu u yeeray niman saxaafada u yeeray saxaafaduna limit bay iska ahayd uu yeeray gaas buu isku soo daawada iga duuba buu yiri waa laga duubay ninkii sidii ku basbeelay waa isku dayn lama badbaadi karahaynin laakiin waxa weeyaan ninka waxa ku kalifay maartay xiriirka noloshii ahayd iyo booliisku say ula dhaqmeen iyo meeshu waxay ahayd dal dictator ama iska ahaa ninkii joogay ninkii madaxweynaha markaa joogay markii wiilkaas isu gubay 16 jirka ah markiiba banaanbaxyo aan caadi ahayn waayo waan sunni kale 99% waa dal sunni bay ahaayeen oo dadku hal qowmiyad bay ahaayeen qabaa'il ma ahayn say iyagu ku fiicnaayeen oo si Libya iyo Syria iyo Iraq iyo waxa soo dhan ka dhacaya maartay iyaga kama dhacaynin markiiba ma taqaanaa ninkii airportka ayuu diyaarad buu ku cararay familkiisa buu ka haysay wuxuu qaadan karana waa qaaday halkaas uu ku baxay marka arab waa marka waxa weeyaan December January ayuu 17kii buu cararaya ama January 23 buu cararaya oo 2011kii marka Arab Spring wuxuu soo gudbay Syria marka waxay kaga duwaneed waa sunniyiin boqolkiiba 73 waa sunniyiin awood ma lahayn إلا حافظ أسر أو علوي علويينتو والشيعة قلوا وير وأنا شيعة لكن جروب يرى الشيعة سيد أحمدية وكلا يورتها وكلا بي علويينتو يرى سيري مركا واحد وعلويين 12% كلو 12% بدل كده بكم يهين بقى 12% بقى ما أنت وحودك حكومة كنتم يصدح سنة وأنا 12% مقتل بودك حكومة marka Syrianka marka kuwaas amartay xukuumiyada calawiinta sunniyiinta Tunisia Soomaaliya madaxweynaha kuma kicnamay erino dawlad iyo rasmi aduun may kuma dhaqaaqin reer galbeedkan waa taageer meel laga soo galo male markay inay soo galaan bay jecel waa Faris Socday kuna marka Syrianki sunniyiinta oo 73% ah waxay damceen inay barnaamijyada waxay sameeyeen waxay yiraahdeen doorasho rabnaa dimuqraadiyad ma jirin بمعنى ديمقراطية مجرين إنك والله دورت 2000 كي والله دورتي بنتي هور أبيس ده عسكري بها انقلاب بكو قبصدي ده أبيس عينا ما دور جري انقلاب عن عربتي أفريكان كذا لك سوكري انقلاب كل وقت سنجري أبو كم يظهر وكل هلاي
laakiin isagu mar buu yiri waxbaan dooranaya laakiin haddana dee cid la tartamaysa ma jirinba marka sidaas uma taqaanaa maartay ninkan uu ku joogay ama taqaanaa uu ku joogay marka qoliyahan marka ay barnaamijyada sameeyaan si loo eriyo ama isbedel u sameeyo iyagu hal erimo boodan sidii bin al-Abidinki Tunisia waxay ahayd isbedel rabno doorasho dimuqraadi noo qabaa la yiri wixii uu ka madax adeegay way kaceen barnaamijyo badan sameeyaan waxa soo baxay 13 urur oo mucaarada baa soo baxday Syria ka soo baxday waa marka waa bilowgii 2 years bay marka jirtaa 12-13 way 13 urur oo mucaarada baa soo wada baxay kurdiintuna ay gaar ka ku 13 kuna waa sunniyiin waana 73% hada la socda 73% ka wadankiya ninkii uu cadaadiyay reer galbeedka marka fursad bay ka heleen waxa weeyaan sunniyiintii bay hubeeyeen laakiin ha hubeeyeen may doonayeen inay ninka ridaan waxay doonayeen inay isku jabaan si Soomaalidu la isku jabinayo kale oo wali ay soo ka ciladahay bay ma taqaan la doonayeen inay isku jabiyaan sunniyiintii baa la hubeeyay waxa la dagaal gala oo maartay kaas wada garab taaganahay xaqana ruushka baa soo galay markuu arkay galbeedkii oo hubka daldalay sunniyiintii buu ruushkuna xaqa soo galay dhinacan kale waxa soo galay Iiraan baa soo gashay waa calawiintu waa Iiraaniyiin oo maartay waxa la dhahay qoliyahan Shiica way maaho labadaas qolana xaqay ka soo gashay reer galbeedkii marka Obama de madaxu ahaa Obama marka project ka u qoray this is project 100% waxa weeye wax taariikh muhiim ah oo fursad u lumiyay Obama u lumiyay weeyaan marka project ka saan u qoray anigoo de ka gubanaya nimanka sunniyiinta waxa ku dhacay waliba aan idin sii sheegay meesha la yiraahdo Syria markii Soomaaliya ay duntay Syria waxay u ahayd dalka kale Freeport ee Soomaaliya Uganda waa ahayd laakiin Uganda waxay kaga duwanay Syria qof aan baasaboor wadan oo dukumeentuna haduu yimaado oo meelaha ka soo tahriibay wala dajinay af Soomaali waxa lagu imtixaan af Soomaali ma taqaana marka hadii af Soomaali ku hadlo waxa loo sameeyay waxbarashadii bilaash baa ahayd ilaa jaamacadihii waxa bilaash u ahaa isbitaaladii dawladda firi bay u ahaayeen caruurtiisa waxbarashadoodii wax aan inaba adduunka dhicin bay ahaayeen moogtay nimanka waxay noo sameeyeen marka anigoo taa og nimankaas si Soomaalida abaalka Soomaalida u galeen anigoo og Obama nin la soo shaqeeyay ahaa dalkana uu burburayo oo sidii Tunisia ahayn uu calawiin yar ah haysto 11% 12% ah ay haysto sunniyiintina ay kacsan yihiin haday si socotana la isku bururayo muslimiinta in sunniyiinta la leynayo bar marka project kan aan ku tuunsaday project-kaas aan qoray shan qaybood buu ka kooban yahay marka summary baan sameeynaya hada wax kama sheekayna hada wax socday waxa anu project-kaas Obama ku fail garoobay fursadda uu lumiyay iyo sida aan ugu talagalay 11 years ago ahaa baa doonayeen shan qaybood bay ka kooban tahay qaybta koowaad waxay ahayd tier 1 waxay ahayd in la dhameeyo in la joojiyo ama la dhameeyo dagaalka Socday dagaalada Socday barnaamijyada Socday iyo isagina wuu la dagaalamay wuu leeynay kuna barnaamij kale kuma eka waa bilowgii barnaamij kale xabada uu qaranay inta uu barkeer galbeedka hubsiyay inta uu garaacay wuxuu ku shubay xitaa sumbu ku shubay maartay meydkoodii ma taa ay barareen oo maartay lagama shaakeyn karo wuxuu ku sameeyay ninkaas dalka wuxuu ku sameeyay lagama shaakeyn karo marka in la dhameeyo dagaalka la dhameeyo oo la joojiyo qaybta labaad waxay ahayd in la doorto interim government maanta interim government bay doortay shalayna dagaalka la joojiyo interim government laakiin tan wuu ka duwan yahay hadda iyaga iskoo u samaystay la ana wax badan oo caawinayo halka ka sheegi doono iyagu markaa ma haysan fursadda hadda ma haystaan talabaad waxa weeye interim government in la sameeyo tiirka saddexaad waxa weeye departure of Bashar al-Assad inuu dalka ka tago ha ka tagay wuxuu ku tagi doona waa soo wadaa ila waa in iska tag lama dhahay nin tag lama dhahay wuxuu ku tagay la sameeyay waxyaabo kale in la sameeyo oo laga heshiyo qaybta afraad waxay ahayd brokering maartay in la sameeyo Mareykanka ilaa isaga madaxweynaha Mareykanka la hadlay peace agreement inuu u kala saxeexo Israa'iil iyo nimanka la yiraahdo Syria way Golan Heights bay ka haysatay anigu waxaan fiirinayaa ninkan Obama waxa la jiray baxbu u dhigi jiray ka tag buu dhigi jiray sidii ciyaal suuqnimo maartay nin weyn ma madaxweyne qaran waxa ku hadlo waxay iska tag buu dhigi jiray wasuuq ta dalka waa sa Ruushia Iran waa sameeyay ku baahan iska tag kuma tagay waa in heshiis hadii uu nidaamkan aan sameeyay la iman lahaa Obama 100% I believe 99% I believe inay ma taqaana success ahaan lahayd
marka taasna waa martaqaana in Yahuuda iyo Syria loo kala sameeyo heshiis oo Golan Heights si heshiiskan u dhaqan galo si dadkan u wada heshiiyo si Bashar al-Assad isagoo aan qoorta la qaban uu ku tago Golan Heights baa hal la siiyo nimanka la yiraahdo maartay Syria loo soo celiyo oo Mareykanku waxba kuma ahayn saddex prime minister ba hadda ka hor ogolaaday intii Xafaad Azal uu joogay oo ogolaaday inay Golan Heights siiyaan haday heshiis wada saxanayaan Xafaad Azal baa diiday wuxuu yiri Arab maxaa dhigi jiray 67 warkii inta carabta laga qabsaday dhan way laga baxaa waa nin weyn buu markaa ahaa dal qiimo leh oo Syrianku dad qiimo leh ay runtii wala dumiyay marka taasna ma yandhic nasiib daray ku dhacday qaybta shanaad waxa weeyaan in la qabto conference in la qabto reconstruction wixii murmur dhacay iyo wixii dhibaato dhacday dalka in reconstruction dib loo qabto oo World Bank iyo IMF iyo Western iyo Mareykanka iyo Russia iyo ila dhinac burburinayeen in inta dalka dib loo dhiso oo dalka caadiga ah uu noqdo oo soo wax weyn uu san dhicin horta marka view good idinka siiyo horta saas oo proposal ka ahaa wuxuu ahaa political solution proposal on Syrian crisis ayuu ahaa marka shanta qaybood bal marka qayb aan hoosoos ilaah u galo waxa maartay qayb walba maxaa ka iimaanayay qof qaybta koowaad ee ahayd in crisis kala dhameeyo oo dagaalku istaago sidii shalay ay dagaalkii qoladan ugu guuleysteen xabad ay ku joojiyeen laakiin wada hadal kuma joojin laakiin kan wada hadal in lagu joojiyo maxaa laga filayay inay ka soo baxaan waxa laga filayay qodobada soo socda in conference loo qabto special ah oo maartay opposition groups national opposition group oo 13 ka ah in loo qabto iyo Kurdiska in loo qabto oo iyaku ay mataqaana horta isfahmaan ilaa hadda qolyo kala socda way horta naftooda la soo heshiisiyo iyagoo wada heshiis oo wada socda opposition groups ka martaqaana inay saxiixaan maartay inay martaqaana saxiixaan heshiis ay ku midaysan yihiin qodobka ku xiga in mataqaana ay soo doortaan representing maartay maxaa dhahdaa dawlad interim government inay nimankii keenaan oo yiraahdaan maartay waa kana maartay in sida tan waay oo wax la yimaado si hadda qodobkan u timi qodobkaas marka maxaa ku sii xiga in mataqaana oo referenda waxa weeye inay soo noqoto la soo celiyo wixii refugee ah 9 milyan 6 milyan lagu sheego waa been 9 milyan oo Sunniyiin ah dalka ka qaxay 900,000 hadayba 1 milyan ahayn markay cid tirisay ma jirto waa un isticmaash baa reer galbeedku sameeyay un baynu aragnaa mooyaane wax sax ma si saraxa u soo baaray ma jiro 900 oo kun oo Sunniyiin la dilay oo ninkuna dilay maxaan dhahay oo qaar koos intii lagu laayay marka in wixii 9 milyan ee qaxooti ah inay soo noqdaan halkaas waxay ahayd mataqaana sidaas in mataqaana qaybta koowaad inay soo noqoto qaybta labaad maxaan idhi marka waa in interim government la dhisaa interim government maxaa laga filayay marka inay dhisanto interim government-ga inay qolyahan soo wada hadlay maartay 19 group ah iyo mataqaana Sunniyiinta oo Calawiyiintu baraka waa ku jiraan Calawiyiinta laakiin Calawiyiintu marka dawladda bay ka wakiil ka ah ila dawladdu waa in heshiiska gashaa ma ogtahay 13 ka urur Sunniyiinta maxaa dhahday Calawiyiinta oo dawladda haysta iyo KDKF miyo hageedka la oran jiray Kurdiyiinta oo iyagu separatista ina wada ka go'an bay ku doonayaan khayr ma laha kuwaas meel walba Turkiga iyo Suuriya iyo in Iraq kullu waxaas ay ku wadaan Turkiyiintu waxay leeyihiin namidaydaas leeyihiin marka intaas in la soo wada heshiisiyo oo marka interim government halkaas lagu soo dhiso marka maxaa ku xigay oo qodobkaas ka mid noqonayay unifying opposition groups militants qolo walba military hubaysan bay lahayd in la mideeyo horta oo hubka laga dhigo qoladan si fiican bay yeeshay hadda qolatan si aan inaba caadi ahayn waxana ka sheekeynay way sameeyeen waxana 2013 kan qoray fiya waxay unify gareeyeen opposition groups ciidamadoodii hubkii wali lagama ururin laakiin waxa amar la siiyay rasaas kor lama ridi karo laguma barnaamij karo rasaas inta la saa loo rido si bulo leerkii oo kale lama sameyn karo buu ninka hadda meesha haystaa yiri ninkan meesha haystaa 10 milyan baa Mareykanku dul dhigay 2017 markii hore wuxuu iska ahaa nin dadka kan mudaharaadiyay buu ahaa laakiin 2017 baa waxa la arkay ninkii oo balaa oo meel sare marayo ururada islaamkii waxa la jiro markaas 10 milyan bay dul saareen maanta iyagoo aan raalli ka ahayn bay haddana ogolaadeen yiraahdeen waa nin fiican oo
حجير وين ما حجير فوق ما يقولين 10 مليون بانا سارن oo xitaa wali kama qaadan Mareykanku moogta wali lagama qaadan marka maxay ahayd maxaan ku sii daray qodobka oo interimka governmentka marka inta heshiisaa la sameeyo marka ciidamada la mideeyo marka mataqaana Bashar al-Assad uu xukunka ku soo wareejiyo qoladan ku soo wareejiyo marka in la qabto interim government within a year muddo sanada in la siiyo qolada mataqaana opposition groupkii meesha qabsaday in muddo sanada la siiyo oo sanadka marka ay isfahmaan oo xagaajina wadankii dajiyaan oo ay sameeyaan in mataqaana marka interim government ay marka ay ka baxaan oo doorashada sunniga helaya degma loo galay sunniga majaarad ku noqonaya marka waxaas isla musuq ogoleen marka hadii doorasho xalaal ah timaado bade calawigu meesha waa ka baxayaan ma aha taasi waa qaybtii koowaad ee aan ugu talagalay waxa ka soo baxaya waxa igu xigay qaybta kaleeto inuu Bashar al-Assad wadanka ka tago waxaan niri Bashar al-Assad iyo dawlad iyo calawiintu conference-ka wada heshiinta ay kamid noqonayaan interim government la soo dooranaya xulku soo wareejinaya marka qaybta tan waa departure of Bashar al-Assad marka Bashar al-Assad maxaan niri hada uu cararay handidiis uu ka cararay caruurtiisa ma way ka hor buu geeyay uu raashiga geeyay isagoo qorqabada buu maarta cararay laakiin sida ku tagi lahaa wadanka kaga tagi lahaa sidaan baan soo jeediyay aan Obama soo jeedinayay waxaa yiri Bashar al-Assad marka intaas ay dhacday waa inuu wadanka ka tagaa marka ICC-du indictment uma sameyn karto kuma soo oogi karto genocide badan buu galay laguma soo oogi karo waayo waxaan rabnaa in wadanku uu dego oo qolada calawiintu ayan baqdin badan arag uma ayan cararin oo waalidka argudana dhihin ninkeedii haddii arkaan la jeedsiiyo marka waa inaan in qolada ICC-du ama ICJ-du inayan mataqaana inayan ay dambi ku soo oogin laba interim government-ga oo sunniyiinta noqonaya inay ku soo oogin war against humanity buu galay ninka kan labada qolona ma ku soo oogi karaan baan iri waxaan kaloo iri ma uu noqonayo in liable uma noqonayo ama laguma soo oogi karo by any means uma noqonin civil lawsuit in lagu sameeyo kuwa hore dawladay ahaayeen laakiin hadda Mareykanka waxaa jooga shakhsiyaad baa dacwoon kara oo dhihi kara lacag buu leeyahay Soomaa lawyer banaanka u yaranaya Soomaa way suu gareyn karaan waa aabayaashii walaaladii buu laayay la dhihi karaa marka civil lawsuit lagu sameyn karo dawladdu interimku maxkamad ma saari karto kuma soo oogi karto ICJ-du Hague kuma soo oogi karto intaas oo isagii baan u sameynayaa inaan wax gaarin ama waayo ninkii waxaan rabay isagoo nabada inuu baxo dalkiina u wareejiyaan doonaya ma ogtaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa wixii Assad uu lahaa hanti uu lahaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa inuu qaadan karo inaan loo dhan waa uu dhacay iyo malaayiin iyo bilyaaniin isbuu qaaday wax alla wuxuu sheegtay inuu leeyahay okaasha Assad ah inkaas inuu qaato loo ogolaado bagiyo ku wareegsado in loo ogolaado ma inka loo ogolaado waxaan kaloo yiri family-giisa maartay family-giisa iyo iyakana wixii Assad ay leeyihiin inaan frozen laga dhigin isagana tiisana wixii dibadaha yaala inaan frozen laga dhigin ama gudaha la frozen laga dhigin kuwii family-giisana inaan frozen laga dhigin marka intaas oo qodob oo u wada daneynaya isaga hadduu heli lahaa goolan haydna heli lahaa dalkiisana uu dagaal dhicina uu midayn lahaa ma u malaynaysaa in mataqaana wax dhici lahayn may wuu ogolaan lahaa laakiin dee Obama kullu fidna inta gel meel dhijir carabka kullu fidna Obama moqtaa waayo dawladaha muslimka inay burburiya qorshuhu ahaa qaybta afraad waxaan idhi in peace agreement bay ahayd brokering permanent peace agreement between Israel and Syria oo maartay Golan Heights in laga heshiisiyo marka waxaan idhi hadaa waxaan sheegay saddex prime minister Yitzhak Rabin waa kii bilada Nobel-ka qaadan jiray wax xustaan oo Oslo ku qaadan jiray Yitzhak Rabin ee la dili jiray iyo Ehud Barak mid ka dambeeyay iyo Ehud waaye kana waa Ehud Olmert kana waa Ehud Barak saddexda prime minister waxay ogolaadeen xilligii Xaafid al-Assad waxay ogolaadeen saddexduba in Golan Heights ay Syria ku soo celiyaan iyakuna ay heleen permanent peace marka Yahuudu waxay raadinaysay nimanka calawiinta maxaa la dhahay nimanka shiicada ah hatta waxa loo digay dib loo socdaa oo hadda loo ogolaaday ninkii 10 milyan saaraa
waxaa loo ogolaa sunniyiintani in laga hortago shiicadu waa sunniyiinta kuma yuhuud kusoo duuli maayaan inay Golan Heights ka wada hadlaan mooyaane marka waxaa weeye waa calawiintii iyo halkii kale shiicadii kale ee Iiraaniinta ahaa iyo waxaasoo dhan baa mataqaanaa hadda laga dagaalamaya maartay in ay la doon in meesha laga saaro way hadda dagaalkii hadda uu socday waxaa la ogaaday markii Gaza waxba laga qaban kar waayay buu isku sii daayay ninka waalina prime minister ka ahay Netanyahu wuxuu isku sii daayay meesha la yiraahdo Syria isku sii daayay wuxuu leeyahay Xisbullah baan la dagaalamaya madiibada barays inta laga dhibaatada la gaadhay sawaariikhda saa ugu dhacay gurigiisii ku dhacday marka hadda waxa la ogolaaday oo qolatan baadan la biday markii hore sunni baa la dagaalamay way shiicada ayaa la soo dhaweynayay waxa la iska dhaadhiciyo marka wax akhridaan waxa la iska dhaadhiciyo shiicada Western kama soo horjeedo waa sunniyiinta waxa marka sunniyiinta dhulka dhignaa 7 dal sunniyiin ah kii sunni uusan joogina waa majority ayna lagu wareejiyo shiicada joogto lagu wareejiyo sida Syria dhacdo kale Libya maxay ahayd martay Iraq oo kale sida dhacdo kale in yar percentage yar waa baasha martay sunniyiinta maxay dhahdo shiicadu therefore waxay marka in Golan Heights laga heshiisiyo marka kan maxaa marka imaan lahaa in Syriyiintu ay aqoonsadaan full recognition inay siiyaan waa idan aqoonsanahay permanent peace ay la saxaxdaan haddii Golan Heights la soo celin lahaa sidaan ku taliyay qayb laba Syria will not host or support any terrorist group Syria terrorist group ودوالان كوش كربان لكن قرا ثرات كو يهود ثرات كو aan u qoray qolo yahuud ثرات كو ay diidayaan inay host gareyn inay wadankooda sida Xisbullah oo kaleeto sida qolo kaleeto soo bixi doonto sida ISIS oo marka la aqoon gadaal ka soo baxday oo kaleeto inayn cid ثرات ku ah yahuuda inayan host gareyn ama dhulkooda aynu ogolaan saddex in Israel ay tirtirto ama ay budumiso جو settlement Golan Heights inta Golan Heights ay haystaan waxa settlement deegaan yahuudeed oo shacab la dhisay oo yahuud u sharciyeysay ka jiro dhan in la burburiyo ma aha xitaa in lacag loo celiyo ma aha katrabin in la geliyo qodobka afraad Syria inay dib u hesho Golan Heights taas waa peace agreement-ga Syria iyo dhexmari lahaa iyo Syria iyo Yahuuda oo Golan Heights baartaqeen sida inuu ahaado Golan Heights marka intay leeg tahay waa 200 square kilometer 200 square kilometer waa marka saa loo wareego baaxadda hoose ama mile haday noqoto 500 square mile waay 500 square mile bay tahay marka sidaas baa mataqaanaa Golan Heights in lagu celiyo iyo waxaas oo nidaam iyo waxaas oo nabadgelyo iyo waxaas oo wanaaga iyo waxaas oo dadkii la mideynayo inay ku timaado oo ninkiina daac loo raacano reerkiis daac loo raacano handiis daac loo raacano cidina dacwan karin marka uu aqbali lahaa maxaa weheliyay in la qabto conference oo reconstruction development for Syria in la qabto shir oo construction kaas la qabto construction ka dib loo dhiso dalkii UN-ka United States-ka EU-da maxaa dhahdaa Arab League waxaas oo dhan in conference ka soo wada qayb galaan inay mataqaana bridge sameeyaan in dalka dib loo dhiso wixii la burburiyay in wax weyn laga qaato marka conference wuxuu noqonayaa reconstruction dhismaha iyo humanitarian assistance Syria oo transition inta ku jirto way dad badan baa qaxay 9 million baa qaxay 9 million kaas loo sameeyo assistance humanitarian assistance in loo sameeyo marka intaas bay mataqaanaa kaasna aan maartay aan ku soo jeediyay conference-ka la qabanayaana in lagu qabto baan iri conference-ka la qabanayo in lagu qabto Golan Heights maxaan uga dar lahaa Golan Heights waa meesha yuhuudda haysato Soomaha in Golan Heights lagu qabto nabadgelyadana in Turkigu qaado Turkigu shar weyn baa siiyay sababtoo mudan yahay Soomaaliya waa ninka
u hagar baxay marka adna markaad qalin hayso dee u hagar bax anigu dowlad ma heli laakiin madaxweynaha baan u qorayay aan soo doortay soo caawiyey baan u qorayay marka sidaas baan mataqaanaa ay wixii ku dhaceen hadda wixii waa soo hadda dee sidii loo qabsaday dagaaladan iyo waxa iska ilow markii dagaalku 17kii buu si fiican u bilaabmay 17kii markuu si fiican u bilaabmay lagu qaadayo dee sunniyiinta 45 dal baa ka qayb galay ISIS baa soo baxday waxaasoo dhan baa soo baxay marka sidaas ay mataqaanaa aan ku soo gabagabeynayaa arrintaa fiican twitterkayga haddaad eegtaan cabdisalaam isma one haddaad eegtaan biner tweetkayga waxaad ku arkaysaan birth of ISIS dhalashada ISIS-ka and your migrant crisis could have been avoided if President Obama accepted my proposal on Syrian crisis. hadduu kan aqbali lahaa wixii qaxooti Afrikaan ama Carab ku qaxay markaasii Arab Spring bay la bilaabmeen waxaasay ka hortagay maanta qaxooti waa kuwa taagan waa kuwa Soomaaliya naga qaatale 45 ISIS dal baa isugu tagay marka intaasan ku soo gabagabeynayaa waan maartay waan u hambalyeynaya sida wanaagsan ay hadda ay meesha u qabsadeen shacabka Soomaaliyeedna aragti fiican ha ka yeeshaan kuwa badan oo waxa arkay baan dhahayaa Libya kale noqonaysa iyo ma noqonaysa way kuwan wax Sunniyiin waana midaysan yihiin qabaa'il ma Libya qabaa'il bay ahayd kuwa qabaa'il maaha waa organization soo dagaalamay soo dhintay waa kuwa maalintii qabsay maalintii ku xigtay magacaabay dawlad magacaabay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh